أنا وحن مغلبون النبي عليه الصلاة والسلام وله والدك وأوسط أبواب الجنة الباب الجنة كوا وفي على مكونه حيوية هدات الربطه ده إلى شاء البابك هدات ربطنا ده أدوس كذا يعني كشرت أبو لي ha iska lumin waqtigaaga sidee kaali soo dhawow waqtiga waa hantida ugu qaalisan qofka uu leeyahay waana waxa ugu fudud ee qofka uu liman karo sidaas awgeeda ka fogow saddexdaas arrimood midda koowaad dood aan natiijo lahayn inaad ku murantid waxyaabo xal aan lahayn ama faa'iido lahayn waxay daalisaa awooddaada tamartaada maskaxdaadana way daciifisaa sida nabi sallallahu alayhi wasallam sheegayna ilaahay subxaanahu wa ta'ala kuma jeclaanayo midda labaad waxay tahay xiriir aan mustaqbal lahayn ha ku daalin xiriir aad ku dareemaynin nabadgelyo aan mustaqbal dheer taa kaliya waxay daalinaysaa qalbigaaga sida markaad hindhisays aad u dhehaysid alxamdulilah hisho aad u dhehaysid ayaa mudan in aad ugu tagtid alxamdulilah midda saddexaad waxay tahay meel aan laga aqoonsanan qiimahaaga iskaga tag waqtiga ma hakado waqti walba tagayna wuxuu ka tagay waa adiga taas macnaheeda oo ah qayb noloshaada ka mid ah ayaad weysay ilaasho waqtigaaga ilaahay qanihiisa waxaa ka mid ah inuu haddii uu doono kulligeen ilbirqsi idin wada baabi'in karo qaruumaha midoobay iyo kuwa kala tegey dhammaan meel bani aadam joogoo dhan hal ilbirqsi amarka ilaahay ma ogtahay wax sii weyn maaha waxaan ka wadaa waqti ma qaadanaya والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما